إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بسم الله وكفى. سلام الله عليكم مدنيال iyo marweyn. galad la isagama quusan iyo gargaar ee bakeenayo gowraca gudaheeda inkastoo Soomaali gacan siin rabto guudka ceebtii naga gaadhay iyo gocoshadii gaamurtay giriftii igu gaaxday iyo murugadii gaarka ahayd haddii nala gumeeyay ee garnaqsina loo diiday garashadeeda gaaban goor iyo waqti baa gurmano waxaan kaga geeraarayaa gees aan gaasirnayn Soomaaliya gidaash waan u rabay iyo loo galaan galbeen guuray waxay ganataba xididkii galin dheer ay nagu garaafeeyeenba galabtaan u gaargaar garbinaya oo gar iyo qabiilna iskuma lugoynaya garmaqaatana yeelkiidhe gaashaanka inaan garabka u gashtaa alla ilahay galabta waa igu gar alle guntii ay naga geeyeenna waa inaan baadi goobaa waxaan kaga geeraarayaa gees aan gaasirnayn arrin garmaqaata dhagax baan gorfaynayaaye wana laba godle ila socotii horaan kuu goondaynayaaye cadow taladii guuriyo guura badan yeeshay gamuunka iyo tooriday waran kuu soo gurtay galowyaha intuu kugu dhuftay oo seeda kuu gooyay oo gambalayda gash liyo maatida gowracaya gurtaadana yaqaan oo hadhow aadan ku gacan saydi karin sidaa nacab kuu galay kii gacal yiri soo wax garaac ma aha nacas gaabiyaha yeela iyo garasho doofaare guuleed kamaba suurowday iyo geesi guntaday rag geesinimo sheegto oo goob sare taagan runta anoo ku gurxami waa inaan gudagalaa markii aad shacbigii gam siisay ee dili garaadkiina Soomaaliyood guul u horseedaa way kuu godlataaye garaada iyo gelibay dabadeed kuu gobaynayaan ilaa noomaba aadan giisnayn waa amuur xalgadisle darajada gardarada wuxuu galbeedka kuu siiyay ama darajada gardarada wuxuu kenyaatiga kuu siiyay ama macnii guntiga lacagta ku shubantahay kugu galadayo war sawtaa in laga gaashaantaa meesha kuma gudboona soo geesiga sheegataa ka gaasiran ma aha war ruuxii geeda beertiye kii hawd ruuxii geeda beertiye kii geel hawd gashanaya iyo gabano wixii kula garab ee ganacsi roonaaba goosooda waxa ku dirtay dhowr le gudaha afkooda cadow ku goondayn jarale inta gashiin kale gash iyo gush iyo toogasho iyo garbaduub la kala guuro hedhagoolay dadkiinu madhaanood gabigood aad kadab goyso alif weeye waxay ku gartaan aad ka guud sugatay gumaysi u shaqaysay maxaad adigu gaadhay waa guul daro godinteedu wadato oo godka kugu hubsane gartaad heshaaba kuwa kan way ka garbiyayaane war sawtaa in laga gaashaantaa meesha kuma gudboona geeshkii guhaad ma layn ee waxba gorofka ku duuday kii war geeshkii guhaad ma layn ee waxba gorofka ku duugay kii wax galka badaad geerida horteed godadka galgaliso guudkana ka toogta aatirikeeni talada gooya war sawtaa in laga gaashaantaa meesha kuma gudboona war gabaatiga idin gasina iyo Soomaali garashadayda gadiga aan rabtaan ruuxii qaadan waaye ee galayus diidan gadiga nacab reer gubaydhe damba waajib uu helay qofkaasi guubaabaysanuye waxba nimankaasi toodii anigoon gibidhsanon sii ganan rag baa Soomaaliya gumaysi la guura u noqday iyo guumaysi baqayrkood nacabka soo gongolay dhulkii uga badanayaane garawaan naga dhex goostay iblays gaatay oo qorane gorgor xun buu noqdaa iyo hangool noo garaaryaale gandigu markaasuu dhashaa oo guridiida sidii galaxda dhayday caana karuura yeeshay wuxuu gurgurshay ninkaasi waa gurufka hooyadii gaawo eelkii lagu gam siistiyo waa godin cadow waxay guul alla u tusaana waa gabi dhaclayn iyo gumaad ehel maansada gabiyaa weyn iyo gaariya wado gambisa weeye xaajada ninkii garasho wareerowye arrin garmaqaata dhagax baan gorfaynayaaye waana laba godle ila soco guunsigii soo haray baan kuu goondaynayaaye war gaadiid geerkiisu xun yahay geediguur ma lahane Soomaaliya gaajada haysata iyo gacan badnaanteeda dhulkeeda gubasho iyo gablan iyo xaaluf iyo ceeb ah galiinkoodii waa waxa ka dhigay kii guracnaaye oo ay dunidii sidii ruux gandheer uga gantaalmeene amaba gabalba ay qolo ugu xidhan galinba waa dhinace war guverna shalay markay galbiyoon oo maalmo guri joogtay galiilyo laga xanaaqiyo afxumo tay ku guud furtay goobtii la joogaba cay tay ku gash siisay
iskagama gaar noqotido berri bay goodaala wareegaysan war gay talis guracan maamulo oo dani gabax siisay war dulli baa u gaaxgaaxsaday waxbay ku gadanayaane waase xukaamad gooniyowda loo guntiyey ceebe guulle iyo dhaartii nimanku waa siduu kancaan sheegtay war madaxda adduunkiibaa gaacay gurxumadoode gumac markay nagu ridayoo guunbaba noqonnay oy galowga noo yeerisay bay ganacna siiyeene war gebgeble iyo tuug kama cabsado duul wax garanayaaye run gadaheeda daayir ahayn baanay aad u gorfaynayn war guuguulahaasi garoonka kismaayo ka gowgowle gumaysi diidaha sheegga iyo waxbaan kuu garanayaadooda gafanka iyo goobaha iyo gabadha guurguurta gaarilaha iyo garuunlaha ay geeraarka ku ammaani afar gaaraha joogta wax kale uguma geeraarin war goongoon cidlaa bay wadaa gaardis badane war goongoon cidlaa bay wadaa gaardis badane gardarro iyo beleya intay guluf nagu geertay gantaalku markuu duulay oo shacbiga gees walba u gudbay kuwa galeenka inaga dhigtay ee sida webiga la gelaayo guruubku waa magacyaday nagu gumeeyaane war soomaaliya gugeedaha yaroo looma gaabiyo gembiye oo gumaysibaa ka weyn aafooyin geline gawaanada gafanaha degay iyo tuugga garwadeenka ah gawaanada gafanaha degay iyo tuugga garwadeenka ah gorfayn maayo hadal san iyo mid gaadhisa layska gaambiyo aadna waaban uga gaabsadaa geedigan jirine intii ila garanayso iyo ra'yigan wixii ku go'owba markhaati baa sidaa igu geli ganacna yeelkiidhe inkastoo toddobaadkayga xanuunka aan soo qaatay weli aanan ma arkayse weli aan ahay bukaan socod waxaan jecelahay sida ballanteenu ay ahayd maanta inaan saacad aan qalliinka u qaadanno bal nidaamkan axmed madoobe oo magaalada kismaayo kenyaatiga uu kula joogo oo Puntland loo yaqaano ayaanu doonaynaa xaq ma u leeyahay bal inuu meeshaasi xil ka qabto sidee ku dhacdaa dadka jamhuuriyadda Maryland ee dhulkan jubbooyinka lagu sheegay iyo gado iskale war ma degayiin mise ma degana mise idaacadaha iyo af baa lagu daboolay inaad barataad u baahan tahay sidee buu ku joogaa axmed madoobe magaalada kismaayo inaad barataad u baahan tahay sirihiisaan idin siinaynaa maanta si wax badan aad u ogaatid taariikhda markaad doonaysid inaad ogaatid dhul waa inaad juqraafiga marka ugu horraysaa aan barannaa dhulka iyo jidadka meesha dhibaatadu ay ka taagtaagan tahay waxaan rabnaa inaan ogaano marka ugu horraysa qarax baa u dambeeyey qaraxaasi waxa uu ka dhacay magaalada Kismaayo ayuu ka dhacay magaalada Kismaayo oo 4 xaafadood ah oo la kala yiraahdo Calanley Faanoole Farjanno iyo xaafadda shaqaalaha 4taasi xaafadood ayay magaalada Kismaayo ay ka kooban tahay walaalayaal hoteelka qaraxa uu ka dhacay waxaa la oran jiray waqtigii hore X Hotel Asasay oo maantana loo yaqaano Hotel Madina oo ay dhisteen niman qurba joog ah oo reer Kismaayo ah Asasay waxa uu ilmaadeer la ahaa ama inadeer uu la ahaa Maxamed Siyaad Barre afweynihii 22 sano dalka Soomaaliya xukumi jiray ayuu ina adeer la yahay hotelkaasi Asasay la oran jiray maantana loo yaqaano Hotel Madina waxa uu ku yaala halka iska galaan xaafadaha Faanoole iyo Farjanno halka iska galaan ayuu ku yaala haddaan juqraafi aan ku siiyo sideeba qaraxaasi u dhacay yaa ka dambeeyay inaad barataad u baahanta qaraxaasi isaga ah yaa ku dhintay yaa ku dhaawacmay yaa ka badbaaday inaad barataad u baahan tahay inkastoo warbaahinta aad la socotaan oo aad ogtiin inta ku dhimatay iyo inta ku dhaawacantayba marka laga yimaado qaraxan daraad Kismaayo ka dhacay wixii ka horeeyay qaraxyadii Kismaayo ka dhici jiray
waxaan idiin sheegi doonnaa dadka ka dambeeyey iyo sida ay u dhici jireen dadka ka badbaaday iyo kuwa ku dhintayba waan idiin sheegaynaa. Kismaayo howlo fara badan ayaa ka socota. qaraxaasi waxaa soo qaaday oo fuliyey farmaajo. maanta waan u nasteexaynaynaa. farmaajo qaraxyo fara badan ayuu fuliyey iyo Fahad Yaasiin, laakiin waa iska shabaab iyaguba. qaraxaasi isaga ah xarakatul al-shabaab ayaa si toosa u fulisay marka ugu horreysa. hoteelka way soo galeen. hoteelkaasi waxaa deganaa xildhibaano oo heer federaal iyo ma arkayse kuwa maamulka Puntland isugu jira iyo wariyayaal oo ay ka mid ahayd gabadhii aadka ma arkayse media aad uga aragteen, gabadha la yidhaahdo Hodan Naaleeye iyo ninkeeda Fariid Jaamac oo isagu ahaa ex wasiir ka tirsan wasiirkii beeraha sidaan rajaynayo maamulka Puntland ee Jubbaland. hoteelkaasi waxaa ku jiray shakhsiyaad ay ka mid yihiin Cabdi Xaashi. Cabdi Xaashiga maan midka aqalka sare waa Cabdi Xaashi, waa isagu macnihii senator ka tirsan ama xildhibaan ka tirsan macnihii federaalka. waxaa ku jiray Iftiin Baasto oo isagu ka badbaaday isaguna madaxweynayaashii Axmed Madoobe 7 macnihii markuu yimaaday taangiga ay keeneen waan la tartamaynaa yiri. waxaa ka badbaaday oo hoteelkaasi ku jiray rag ay ka midka yihiin liiska. haddii aan soo qaato hadda xisaab ma leh. war waxaas waan ku soo noqon doonaa. waxaan rabaa inaan u gudbo marka juquraafi inaan qaadanno. marka ugu horreysa juquraafiga jubbooyinka ilaa xuduudda Kenyaan ku geynaynaa. markaas kadib Kismaayo hawsha ka socota 2 ayaanu maraynaa. markaasi kadib waxaanu eegi doonnaa sida degmooyinka loo kala degan yahay, dadka dhulka iskale ee xaqiiqada ah. marka afaraadna waxaan u gudbi doonnaa mishinada dadka lagu laayo, cidda ka dambaysa, sirdoonka Axmed Madoobe la shaqeeya, magacaantooda, dadkoodii lagu dhibaateeyo magacaantooda ayaan idin macnihii baraynaa. haddii aan taariikh yar aan qaadanno oo kooban, maamulka Jubbaland la baxay ee 3 gobol isku sheegay ee Puntland aan u naqaano Axmed Madoobe Kenyaatiga uu u qabtay magaalada Kismaayo. walaalayaal, gobolladaasi Gedo iyo Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose waxaa lagu tiriyaa 2 degmo oo muran uu ka taagan yahay. marka laga yimaado 13 degmo in ay ka kooban yihiin ayaa lagu tiriyaa. degmooyinka maxay kala yihiin? Jubbada Dhexe waa 3 degmo ayay leedahay iyo degmo muran gashay. 3 degmo waxaa weeye waa Bo'aale oo xarunta Jubbada Dhexe ah gobolkaasi, waa Saakow iyo Jilib. waxaan u gudbaynaa Jubbada Hoose. Jubbada Hoose iyaduna waxay ka kooban tahay 4 degmo iyo degmo kale oo macnihii muran uu ka taagan yahay. waa degmada Kismaayo, waa degmada Badhaadhe, waa degmada Afmadow, waa degmada ma arkayse Jamaame iyo Xagar oo macnihii dhibaato ay ka taagan tahay oo lagu muransan yahay degmanimadeeda. gobolka Gedo waxaa lagu tiriyaa 5, waxaana lagu tiriyaa mararka qaar 6 degmo. laakiin 6dan qaadanayna waxaa weeye Garbaharey oo xarunta gobolka Gedo ah, Baardheere, Doolow, Buulaxaawo iyo degmada loo yaqaano Ceelwaaq, Luuq way ku murmaan, laakiin waa degmo. haddii degmooyinka aan ku baray, sideed u tegaysaa markaad magaalada Muqdisho ka baxdid? sidee baad u tegi rabtaa Kismaayo? inaad barataad u baahan tahay. marka Shabeellaha Hoose aad dhaafto Kismaayo si aad u gaadho waxaad u baahan tahay inaad Jilib aad soo istaagtid. Jilib waxay u jirtaa 180 kilomitir ayay magaalada Kismaayo ee xeebtaasi ay u jirtaa. Jilib marka aad dhaafto waxaad gaaraysaa Kamsuma oo iyaduna 90 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo. waxaad sii dhaafaysaa buundadii Araare oo macnihii aad loogu dagaalamay oy gooyeen USCdii. Araare waxay u jirtaa qiyaastii 65 kilomitir ayay u jirtaa magaalada Kismaayo. Araare waxaa geesta ka haya dhanka badda Jamaame, degmada Jamaame oo badda macnihii marka aad Kismaayo u socoto Jamaame ay kaa qabanayso
dhanka bidix markaa Kismaayo ka soo baxdo xamar ah u socotana midig ay ka qabanayso dhanka badda waxaad u gudbaysaa deetana halka loo yaqaano Baar Sanguuni waxay u jirtaa Kismaayo 45 kilomitir waxaad u gudbaysaa markaasi kadib Buula Guduud oo u jirta qiyaastii iyaduna 30 kilomitir magaalada Kismaayo juqraafigaan baranayna waxaad u gudbaysaa kadib Yoontoy meesha loo yaqaano oo 22 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo waxaad u gudbaysaa Goob Weyn oo 15 kilomitir qiyaastii u jirta afaafka Kismaayo sidoo kale waxaad u gudbaysaa haddaba kontaroolka Kismaayo madaxtooyada intaadan gaarin kontarool baa kaa qabanaya oo akadeemiyadii hore ee ciidamadana ay midig kaa qabanayso isla markaana xeradii ciidamada Luglow la dhihi jiray oo baad ugu tagaysaa markaas kadib macnihi madaxtooyadii Kismaayo ayaad is salaamaysaan markaad kontaroolka dhaafto Kismaayo 4 xaafadood baa gasha 4 xaafadood bay leedahay waan kuu sheegay xaafadda shaqaalaha xaafadda Calanley xaafadda Faanoole iyo xaafadda maxay Farjanno 4taasi xaafadood sida loo kala degan yahay macno badan ma samaynayso laakiin Axmed Madoobe reerihiisi oo la keenay oo dawladdii afweyne ay ku naasnuujisay waxay ka degan yihiin hal xaafad oo ka mid ah inta kale Soomaali weyn iyo Jamhuuriyadda Maryland baa degan marka aad baratay 4taas xaafadood Kismaayo 3 jid baa ka baxda 2 jid oo waaweyn marka aad xuduudda Kenya aad u sii socotid iyo hal jid cadda ah jidka caddaha waxaa la yiraahdaa Habaar Waalid baa la yiraahdaa jidkan ka baxaya magaalada Kismaayo ee aadaya ma arkaysa xagga iyo Dhobley waxaa loo yaqaanaa via Afmadow baa loo yaqaanaa laakiin haddaan ku noqono juqraafiyaan Kismaayo guud ahaanteedba isku soo wada duub xaafadda via Afmadow loo yaqaano waxay kulmisaa dhammaan 4 xaafadood bay ku fadhidaa haddana juqraafiyaan laakiin wadadan via Afmadow ka baxaysa waxay maraysaa Jannaay Cabdalla oo 90 kilomitir Kismaayo u jirta deetana waxaad ka gudbaysaa waxaad aadaysaa Jannaay Cabdalla markaad la siman tahay gacantaada bidix waxaa kaa qabanaya Beerxaani halka loo yaqaano waad ka sii gudbaysaa taabtaad aadaysaa kadib Qooqaani baad aadaysaa kadibna Dhobley xuduudiisaas waay wadadan loo yaqaano iyaduna Habaar Waalid ee jidcadaha ah marka aad ma arkaysa aad gasho waa wada jidcada ah waxay iyadu qaybisaa oo isku dartaa Dhobley kor ayay midig kaga soo dartaa xaggaana waxay aadaa ma arkaysa xagga iyo macni Kiyungi ay bidix ka siisaa tan badda ka baxaysa ee xuduudda aadaysana waxa weeye sida ay u socoto ilaa Rees Kamboni ayay kugu salaamaysaa deetana Kiyungi waaba dhanka Kenya intana waxa weeye Amume waaba xuduudii Kenya marka horta dhulka marka aad rabtid Jamaam ee macni marka jilib aad ka gashid ilaa iyo ma arkaysa xuduudda Kiyungi ama Amume iyo Dhobley sidaasaad ku kala garatay waxaan u gudbi doonaa marka magaalada Kismaayo maxaa ka socda inaad barataad u baahan tahay sidee dilalka qorshaysan ee u dhacaan qodobkaasi haddaan ku noqono magaalada Kismaayo marka ugu horeysa waa 4 xaafadood sida aan kuu sheegay waxaana ka socda isla magaaladaasi dhulkoo dhanaa dhulboob ah magaaladaasi waxaa ka socda Axmed Madoobe reerihiisu ay ku wadaan inta laga soo daabuleeyo Ethiopia iyo Kenya dhulboob baahsan ayay ku hayaan meesha dhulboobka lagu hayo waa galbeedka madaxtooyada Kismaayo wey dhulkaasi macnihi shaqaalaha ku beegan si xad dhaaf ah ayaa loo boobaya dhulbeeraadkaasi waa la boobaya dhulkaasi la boobayo waxaan rabnaa inaan ogaano nafsadiisi sida macnihi uu kala baxayo inaan baranno ayaan rabnaa sideen u baran doonaa waxaan u baran doonaa way iska fududahay degmooyinka sida loo kala degan yahay 3 gobol waan ku soo noqon doonaa laakiin Axmed Madoobe qaraxii hadda dhacay waxa uu sheegtay 26 qofood inay ku dhinteen qaraxaasoo inta badan boqol qof dad ku dhow ay ku geeriyoodeen
oo wariye hodan ay kow ka tahay ninkeeda fariid jaamac oo isagu macnihii wasiir ahaa macnihii ama wasiir hore ahaa macnihii ka mid ahaa sidoo kale dadka badbaaday ay macnihii ku jireen ninka loo yaqaano iftiin baasto uu ka mid ahaa musharax maxamed cumar geedi oo haatan u taagan xilka qabashada macnihii madaxtinimada maamulka jubbaland sidoo kale waxaa ma arkaysaa fakaday oo daaqad ka booday hoteelka ninka loo yaqaano senator cabdi xaashi oo isagu senator ka tirsan dowladda federaalka ah sidoo kale ma arkaysa waxaa geeriyooday sida aan idiin sheegay laba waad qaadateen waxaa ku geeriyooday meeshaasi oo macnihii ku dhintay hal ninka loo yaqaano macnihii shuuriye waa uu ku dhintay ninka loo yaqaano ex xildhibaan federaal shuuriye oo ka mid ah xildhibaanadii federaalka hore ee dowladda soomaaliya hodan waa taqaanaa hodan naaleeye iyo oo ninkeeda oo wasiirka beeraha jubbaland isagu ahaa intaasi haddaad aragteen iyo in badan oo masaakiin ah waxaa intaas sii dheer qaraxaasi meesha uu ka dhacay hoteelka keliya ma ahane wuxuu asiibay dadka xaafadaha oo dhan oo dhimashadooda si dhab ah idaacadaha uu caburiye axmed madoobe aysan u soo bandhigin dhaawacyada tirabeelka ah maxaa yeele waxba igama geli weeye walaalayaal guud ahaanba magaalada kismaayo 1929 iyo 1993 ciidamadii UNITAF iyo UNISOM markay Soomaaliya soo gaadheen waxaan ognahay in 19 qabiil ee degan waayo Kismaayo waxaa degan intii xoogga lagu keenay 700meeyadii iyo inta hore u lahaydba 19 qabiil baa degan 19 qabiil ayay United Nations waxay u qabteen macnihii shir heshiisiin dhab ah heshiiskaasi macnihii Kismaayo macnihii 92 saddexdii loo qabtay oo UNITAF iyo UNISOM maanta laga heli karo macnihii bagageeda United Nations meelaha ay ku qoraan wixii ka dambeeyay Kismaayo waxay ahayd macnihii dhul la helay ninkii xoog leh ayaa lahaan jiray mar Morgan ayaa xoog ku qabsaday mar al-Ittihad ayaa xoog ku qabsatay oo Xasan Daahir oo hogaaminayay iyo ma arkayse Morgan ay isla jireen mar waxaa hogaaminayay wal goormee Xasan Daahir iyo Morgan ay macnihii ku heshiin karaan macnihii siyaasad waa nin diiniya sida uu sheeganayay mar waxaa qabsaday meesha iyada ah nin loo yaqaano bare hiiraale iyo isbahaysigii dooxada jubba oo iyagu isku dhafnaa ayaa mar qabsaday kuwaasoo iyagu dhammaantood dhulka aan u dhalan oo dhulboob ku tegey isku soo wada duub magaalada Kismaayo dhul helay iska ahaydba oo ay iska leeyihiin dadka mayga asal ahaan iyo dad la degan oo la yiraahdo giirgiir iyo baajuun waa sheegi doonaa anoon beel afka ku dhufan sida degmooyinka loo kala degan yahay xaqiiqda ayaan sheegaya waayo xaqiiqda markaa hesho waxaad heli kartaa dawada waxaana ka jaahil bixi kartaa sida dhulka macnihii loo kala degan yahay iyo cidda xaqa u leh in meeshaasi ay maamusho walaalayaal degmooyinkii haddaan kuu sheegay waxaan rabaa inaan haddana sheegno sida loo kala degan yahay Bu'aale oo ah xarunta jubbada dhexe waxaa degan Myland dad ka soo jeeda ayaa degan oo iskale waxaa soo raacaya oo la degan dad kale oo Koyta ah iyo ma arkayse Daahir Amiin Jeesow reerihiisa way degan yihiin Saakow Myland ayaa degan oo iskale waa degmada hadda ogow degmo markaan kuu sheego waxaa kuu sii dhiman tuulooyinkii marka tuulooyinka qaar ka mid ah magacyadooda intaan kaaga sheegi doonaa inta macnihii mayga degan yahay qaarkood dhulkoo dhan baa may iskale halka loo yaqaano Jilib waxaa degan oo aan ognahay ma arkayse may iyo Daahir Amiin Jeesow reerihiisa degan dhulka loo yaqaano Luuq Ganaane waxayba ahayd xaruntii boqortooyadii Myland ayay ahaan jirtay oo macnihii loo xukun tagi jiray Myland ayaa iskale oo degan Koytada hadda timaaday marka laga yimaado halka loo yaqaano Baardheere waa jaamacaddii diinta islaamka ee culunta Myland ee xarunteedii loo
Mula gudema murora, awo